إمك عظيمة في البرنامج كونه يا شيء حندونا يعني إنه سدي بيوجد شوابنا سأشوف برنامج كدارنا أيو عاوة لفقول كذا ديش على سلاك الشركة ورطة وبدوينه سنة قف دوس هذا بيهتر والبيه كتر كذا ما ينكره سيقول ذلك marka su'aasha laakiin nagu aynu ku ekaanayno banalkuna aan doonayno ku ekaado xaweeye jacaylku dambiile miya jacaylku ma dambiila dooda aynu doonayno inaan isla qaada dhigno waxna ka soo saarno waa taa waxaan doonayaa marka inaan ku wareejiyo min waxaan siinayaa 3 minute سو قرح بدن وقوله قفكو تودي سنة وديبتو وحين تاكد منو سو نقولنا وحنكور رئيسين دونا فرحية المفلا من دونينا كبلابو تعالكو دبيلة معها سكوما وحسن دبيلة وحنا هواي تعالكو هواي دراسة كو على شعلالي والدرلا عنكرت شيء haddii qofka aad jeclaatay ee aad jacaylka dhabta u qaaday ee aad waqtiga waayaha iyo wax walba oo noloshaada muhiim ah aad u horeyso uusan dareemin qiimahaas aad siinayso waxa wax bixinaya waa qofka wax jecel cidda la siinayana waa la jeclaadaha sida la adigeed cidda dambiilaha ah وقفك لا جعلاله وأنا فهمت قيمها جعيل كلها بس جعيلكم مرنا بدي وحرجينا ضد لو عضها هذه قفك لا جعلاله هاي وفهم الدور كاستغل ليه هاي جعيل بالبيل ما نقدرنا حتى نروش كلمة بدي والله ضد قال إن شاء الله تام أو علم بدل بهذا oo qeys maxaadilay oo dad badan oo jacaylku ay u dhinteen in la soo qaato ayaa suuragal ah balse soo xaqiiqo ma aha cilmi jacaylki uu qabay hodan hadii ay dareemin lahayd Soomaalidu kuma noolaaden soo hodan dambiila ma jacaylku dambi ma xani markana aan ku reejinaya midigtayda xanu dhibay Cabdikariin Xikmaawi walaal isaguna nooga warbixiyo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ورتوح سود وينيا فرحية وركه هو هذا الكون صوكم تعليس كتعيل كوي صوت أقفكم وحلا إلى هذا وحنا قرينين حدوس هذا كورهم مركل قوله هبل وحا كورهم مركبة شباب كان وحصاقب تا وحاس واسدا صورنيا لكن وحلا عدول هذا وحاس هبل وكورهم وحكورنا وحاس واسداسه ما حقاسه نكسي ورنا marka taamay xagaasna wuxuu qoran hadana xagaasna u sii galaa hadana markuu la xagaana wuxuu qoran hadana xagaasna u sii galaa marka sida awgeed maadaama aan jacaylka aqoon badan u lahayn baan jawaabta u soo koobon ku soo koobay jacaylku waa nololino waxa loo nool yahay horta asalkeeda hadaan ku soo dhawaado dooda jacaylku ma dambiile waxaan ka horeysiin lahaa gaariya wuxuu yiri Allah u naxariistay abeesa laga sheegay buu markan aadmiga fiirshana أرجودان السلاح مركن إيبت شلعنا أولاد سان سلاويت وإلهي وينانتي سمر كان يجي قيامها الله نقولنا والله إسكا وحنا السلاح رابط إسكا شقيسو ضد كايا اللي بتيجي قالن مركن يجينا كأرجودان السلاح رابط سدا وحنا ولا يها مركن تعال كيجي قلت كيسنا ده وبقرنا يساين وحلا عارفين كرامة مركن وناجي سيجينا وحلا وطوري كرامة أنت مركن كاي ماضو إبراهيم قال لا إله ونحرسته سجن وحوري حريرتها دكان كله عندها دعوة كقولي يجا دمبيلابي عدة شعائر كمركه هروح شعلاتها عم بالله شعلاتها بدمبيلات شعائر بسيط دمبيلا ما بنقول كربا مركه حريرتها دكان كله عندها دعوة كقولي يجا دمبيلا أنا بحال كامرتي واد شعلاتي عندها دمبيلادي ويل بحال كان استاجي إن أنت واد شعلاتي عندها دمبيلا شعائر كنا لبا قضب
si uu hees Axmed Mooga qaaday oo ku sheegay buu ku soo koobnaa toddobadan qodob iyo waxaan waa hadal tiro haddaynu mid ku darno mid kale ku daranayo waalida kamida wuxuu yiri ma Umar Dhulla qaada Allah naxariistay bukaan cudur waa jacayl waa boogaan nabar lahayn wuxuu badi kugu helaa barida afkan ku siman buu assalaamu calaykum ina ku tiri baa gabigaaga kula wareegaysa wuxuu badi kugu helaa barida afkan ku siman ruuxa isbarateen mar hore ayuu bala ku suraa marka labadaas yood buu kugu helaya qof sikadiisa kugu yimid amaba inana taar haydeen u baad oranaysaa 10 sano kadib alla ina teer wanaagsanidi la ilaaha illa allah marka biyaha daadinaysa ma darkii weligeedba iyadoo xijaaban mooyaane mutaeedabad baa sharabaadii guriga kaga soo bixi jirtay hadda soo garanaysid labadaas yood buu kugu helaa marka bukaan cudur waa jacayl waa boogaan nabar lahayn wuxuu badi kugu helaa barida afkan ku siman ruuxa isbarateen mar hore ayuu bala ku sudhaa mar kale waxa jira nooc jacayl kamid ah oo masiibo ah nin looran jiray nuur magaciisa aga maqanay ayaa nin nuur la yiraahdo u sheekeynay nuur baa wuxuu ku waxaan arkay gabadh joogta magaalada qabri dahar oo la yiraahdo Maryam Xaashi kulli suugaad waa ku maqasheen baan arkay buu uu sheekeynaya waa galab gaaban wuxuu yiri gabadhaas aadmiga Ilaahay qof la quruxa weligay ma arag qof la kartiyana ma arag qof sidoo sheekadii ugu waday buu ninkii foorarsaday sheekadii goor u dhameeyay buu ninkii laba hadli waayay markaas uu ku warheede waar nuur buu warheede uu la hadlay markaas uu sida macallin miimkii quraan meela ka ilaaway oo inuu mar loo dib ugu dhigo ugu muraaqooday nuurow Maryam Xaashi baa maanku dayay hada inantii looga sheekeeyay buu ka dhax baarayaa humaaga maskaxda ku jiro oo markaas inanta qabri dahar joogta isagoo gaaro jooga maskaxdiisa ka baaraya aynka weefta waxa saarta jacayl jacaylkuna dabiilo ma noqon karo sidiisabana waxaan baleeyay 3 minute wax yar baa yahay sidiisa kalena jacaylku sida inantuba sheegtay farxiya iyo hal door ninkan waa bareeraybe nacay bay la darsay goorahanba waa xagaas isla guur marka hooda iyo farxiya annaga wadan horta baash laakiin iyaga waxaan ku garataa ninkan mooyaane laakiin bay galiyeen laakiin mar haday laakiin la socoto waa 50-50 xawa ka soo maray marka kulli jacaylka waxaan jecelaynaa inuu dib ugu soo noqdo maadaama jacaylku uu yahay waxaynaan tixiya tiraab koob waa buuxnada hadii la hortiigo هلو بعد ما كان يسوي بركان waxaan doonayaa balina hadana dhanka kale aan ka miiso saddexdeeda jaleecaya indaha dadka eegay farax xikmad wal istaaga wada aragtaa farxiyo sidoo kale ka istaagto wada aragtaa adiguna kale ka istaagto jacaylka dambiila miyaa jacaylku تعاو هبينكي جعيلكم ولا هداد wax jacaylka ka soo horjeeda sheegtid badba shii baka baqayay qofay wakiya baankiisa siilashade intaas waa qabtan miska waxa taala su'aala jacaylku ma dambiila isma anigu waxa aaminsanahay dambiga ugu weyn inuu isagu leeyahay sababta uu leeyahay waxay tahay haddii uu ku soo wado afka ka soo geliyo qof aan right person ki ahayn ama qofka adiga kugu haboona oo kula soo doonto oo kugu soo dul warwareejiyo oo waliba yiraahdo alla cadda alla buurana bal ku yaaleeg taysaga dambiilaa u soo bixay min awala wuxuu yiri jacayl waa dareen damac weeye aadmiga qalbigooda dego oo aragtida ku daaray Soomaa qalbigaaga isagu muu degino muu soo galin waxa marka isaga dambiga ugu weyn iskale sababtoo waa ku kaxaynaya hadal qasil cabtiya hadal kaabsool intaba aka tagi habeenii baalina ku dultaagay waa kaynantii jaadka ka muddo sida baa u sheegay ka daba kaynaya bal markuu ay xaafada jaadka deganida sarkaydiisay ee soo hormarinaysay bal muu markaa jacaylku haddaan dambiile ahayn
si aad inantu ugu sheegatid uu ku yimaado markay kaa furto wuxuu kaa soo doonaya dembiga ugu weyn isagaana afka u geliyo qofku aan doonay qof waloo inaga inaga mid dooq buu leeyahay qof waloo inaga inaga midina waxaa jira waxaan isaga cajabin ama qof aan isaga cajabin waxaa laga yaabaa qofka aan adiga ku cajabin hadduu kugu wareego dee xaq baad u leedahay ku tiraahdo wala anigu kaamaan helin waxna kulama qaban karo oo qofku dambiilo kaa kuma noqon karo waayo qof kastoo inaga inaga midin waxaa laga yaabaa inay niyadiisa kusoo dhacdo qof u sawiran ama humaagu rabo dee humaagii haddaan kaa dhex waayay waxaan xaq u leeyahay inaan runta kuu sheego oo aanan been kugu maaweelin oo aan kugu idhaahdo walaal kuma doonayo beenna kuma sheegi karo marka hadduu isagii afka kuu gelinayo qofkaas oo kugu nacnacaya ka tegi weydo dee isagaa dambiilaa waxaad ii haysaan xisaabta waad isugu kay geenaysaan soo maa dhanun baydun raaci idinkuna insha allahu tacaala waxaan doonayaa inaan isagana ku soo dhaweeyo xikmahami waa weeraray oo istifaaci cabdiraxmaan cabdi maxamed cabdiraxmaan jacaylku dambiile miya intiyaanaadkayga waa ku kacaya welina jacaylka waxaan ka aaminsanay ka shaksi ahaan ka cabdiraxmaan cabdi ahaan inuu yahay dambiile weliba dembiga ugu weyn aniga shaksi ahaan buu iga gacay sidaan aaminsanahay ee ku nool magaalada Hargeysa ee la soo fadhiista social media in uu jacaylayo weliba ka hayaatay boqorada haweenka calmaday haddii aanan aaminsanayn wax dambiya inaanu lahayn uba maanta lamaan soo fadhiistay social media dareen bay hayay keensaday inaan dibadda u keeno reality markay runta isku sheegayno jacaylku boqolkiiba 8 dambi waa leeyahay waxyaabaha ama dabeecadahu iga tegay ama dhaqanadu shaksi ahaan iga tegay haddii aan idila wadaago waagaan wax jeclaa waxaan ahaa shaksi bila go-aan halkii loo jeediyo u socda sida ariga tarkasisha waanu lahayn go-aan cadow meel ku yaala oo wixii markaa go-aankayga shaksiyan haddaan ula soo tashado aan idhaaho war maanta waa inaad hiblaayo ka hadhaa hiblaayo uma abuudin nolosha waxaad u abuurantay inaad isbeddel samayso hiblaayo hadday kaa tagtay oo ku nacday oo ku qayrisay waa inaad nolosha u qurxisan la-aday go-aanka anigoo gaadha inaad dib u tagaa anigiiba maaha isriyaalati been idiin sheegi maayo marka waxyaabahan kaa dhexlay iminka oo ka mid a ayaa maalmoo keli baan ahay ayaa maalmoon keli baan ahay deedna waxaan tegey runtii waagii dib baan u xasuustaa nolosha shaksi ahaan iyo ka damiir ahaan qof ahaan iyo weliba cabdiraxmaan ahaanba waxaan dareemayay warwar iyo walaac aad u badan ilaa aan heer gaadhayba in marmarka qaar aniga dib lay xasuusiyo abtirsiintayda iyo ciddaan ahay oo aan dadka dib u dhaqo kuwa maay anugu kumaan ahay anigu dadka dib isku su-aalo isriyaalka weeye waxaan isweydiiyey malaha qisadani malaha inta soomaalida deegaanada bay ka jirtaa waxaan isweydiiyey waddankaan ka baxay safarkayga ugu horreeyay waxaan ku tegay magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia ku tegay waan ka baxay Nairobi baan tegay waan ka baxay Kampala aan tegay intaaba waxaan arkayay dad mintaaqeeya dhibaatooyin tirsanaya waxaan ka qoray anigu qisooyinka jacaylka buugaan ugu magac daray mintaaqa jacayl waan soo bandhigay April 2019 intii aan wadannada kale soo marayay qisooyin aad u layaab badan baan runtii soo arkay dhibana aan la dhigin baa ka mid ah kuwa dahab baa ka mid ah dhimashadii arkeyd baa ka mid ah waxyaabo badan baa jira marka hawl kasta ama shaqo kasta marka qofka ibni aadanka qabanayo waxaa munaasiba oo sunno ah inay faa'iido darraba yeelato kuma eedaynaya aniga dooqayga in aan shaksi ahaan jacaylka ugu eedeynayo dambiile laakiin keligaymayi waxaa jira dad badan oo maanta ila siman nolosha ku jirano cagiskeeda ku jira xaqiiqa been idii sheegi maayo laga soo bilaabo 2018 ilaa habeenkan caawa la joogo xidhiir toosa ama ina lama haastaan habeen daliya dibadintaan joogay sababtu waxaa weeye isriyaalati
sababta reality-ga hadday idin sheegaan markaas kaan waayo waxa weeye waxaa la sheegay qalbiga qofku inuu yahay quraad keensataa inay lidiidya dildilaacay hore keento mar kasta oon isku dayo inaan si kasta u qor badan tahay si kasta u dhaqan wanaagsan tahay si kasta u dabeecad wanaagsan tahayba haddana waxaan xasuusanayaa ama se hor imanayaa inantii hore si wanaagsaneyd iyo sida jacaylka waxaan ka aaminsanahay cabdicasiisow hadba sidii loo dhigo wax kastoo adduunka yaalla waa hadba dhinacii laga istaago jacaylka haddii laga aamino qaab gumaysiya qaab lafjaba qaab nuglaashiya qaab dulinimo intaasuu noqonaya qofka ku jecel haddaad u qaadato qof easy ama adiga ku abuuran ama shay maradahaaga ka mid ah it's not good dee kaasi muxuu noqonayaa xumaantii aad adigu ka dhigata laakiin jacaylka haddaad ka dhigato wax dahaba haddaad qiimayso qofkii ku jeclaaday jacaylku wuxuu noqonayaa waxa adduunka ugu quruxda badan waxaan idiin sheegayaa hal wax oo aniga inta badan aan ku qeexo xaqiiqooyinka khaasatan kuwa nolosheeda ku aadan waxaan nahay dad noloshoodu iska wadaagdhowah haddaanu cabdiraxmaan jacaylka sidaasi qaraarka iyo nacaybshaha iyo karahsiga intaa layga keenaya aanu adduunka jiri lahayn muu jiri lahayn jacaylkan caawa halkan kaga baaqaya waa sababta qaraarka adduunka loo keenay isagoo aan macdan badan ka samaynin sida ay isla wada naqaano qaraarka wax qaraadh oo la necbaysto oo carabku ka soo boodo oo ayaynu u naqaanaa soo maaha laakiin waa waxayna baray qiimaha macaanka geelu ugaasoo markuu ayna biranayo adeerkiina sanaaxiyo hadduu carabku iswaayo isagu ma kala aamusay oo iskuoga laga yaabaa dimaashadeeda cabdiraxmaan jecel yahay inay iyada lafteeda yubka meel iska soo qabantalaadahay waxaana kolleyba noloshu way iska qaybo badan tahay oo maalina waa adiga maalina waa qayrka waxaana wanaagsan qofku wejiga adag ku soo horeeyo dee waayayo hadda wuxuu ku raaxaysanayaa wanaagii uu lahaa xataa haddii aad qofkaa weydiin markaad hadhow hesho qofkii kii wanaagsan waxaad u ilaashanaysaa si ka badan sida qolyaha maweydheemanka u ilaashada oo waxaad noqonaysaa qof garanaya qiimihii qofka la waxaad soo aragtay qofka liita soomaa ama waxaad soo aragtay qof aan adiga qofkaagu yahay qulubta ha istayatee inta istayato si lowdaama isu daytay laakiin haddiiba jacayl dhaco meeshii jacayl soo gala xubinaan qofka meeshuu dee iska qiyaasaba aana joogin laakiin badweynta jacaylka intaad dhex qaadayso way wejiya badan tahay waxaa laga yaabaa dadku inta badan inaanay qiran inuu jacayl hayo waa laga wada midaysan yahay khaasatan habuhu way ka xishoodaanba in jacayl ku dhacay laakiin daana waxaa la yaabaa haddii qof mikrofon loo dhigo ilaa jacaylku ma jiro hadhow qofka xidhiirka wada lahayn wuxuu ku jawaabay ilaa hadhow markuu yidhahdo waa ku jeclay maxaad umadii goor sheegi weyda odhanaya sooma dadka jacaylku wejiga adag ama xun ama qalabsan tusay ee waqtiga iyo waayuu xumeeyeen guul baan u rajaynayaa waxaa kaloo aan bulshada ku baraarujinaya khaasatan caawa inta hoolka ku sugan in aan anigu soo taagnaa jacayl iswaayey 2009 oo iselay wallaahi 2018 sagaal sano kadib ilaa waagaa waxaan iska ahaa jacaylka marka qof kuu diranayo ama marka qof jecel yahay dee jacaylguma dhicinba xitaa haasaawahan iyo nidaamkan aad u laman haysan real laakiin wallaahi haddana waxaan aaminsanaa jacaylku ina jiro caawadana waa aaminsanaa dee waayo tahay imika waaba waxaan isleeyahay xildhibaanada jacaylkaad ka mid tahay ugu dambeyn farxiyo waxaan leeyahay soo dhowo waan ku faraxsanay caawa inaynu ku kulannay magaalo kale oo Soomaaliyeed ku kulannay caasimadda Somaliland ee Hargeysa waxaan ku leeyahay magaaladaadii ku soo dhowo waxaan ku leeyahay haddii dadka qaar nidaam ay ku taajiraan u foofaan dadka qaarna nidaam ay magac ku sameeyaan oo kale u foofaan waxaan tijaarta adduunka u aqaanaa dadka u foofa inay jacayl ka midha dhaliyaan cabdiraxmaan waxaa leeyahay 2 years weeyaan guul baan ku rajaynayaa jacaylo kala saaciday oo guulaystay oo aan ku faani karana waan u soo joogay adigana waxaan ku leeyahay
niyad jabi mayno niyad jabku waa halka guuldarrada laga galo hob inaana dee dumaasho kale u rajeyn maayaan gabadha darteed xiliilka loo daayay waxaa leeyahay soo noqaado nabada